gabadhan Soomaaliyeed Allah u naxariisto ayaan leenahay si arxan darro ah ayaa waxa loogu dilay meel u dhow gurigeeda gabadhan shaqo ay ka soo baxday baskii ay ka degtay guriga iyo baskan waxa u dhaxay meel geeda leh ayadoo dhex maraysa meeshii geedaha lahayd ayaa hal mar qof ku soo booday telefoon ay ku hadlaysay waxay la sheekeysanaysay gabar saaxiibteed ah gabadhii saaxiibteeda waxay maqashay hal mar Naciimo oo qaylinayso cod kale maysan maqlin gabadhii markaas ayaa uu hadal dambeysay waxay isku dayday inay raadiso Naciimo familka ay u sheegtay familkiina kadib ayadan way raadiyeen way heli waayeen booliska ay waceen 40 daqiiqo ka bacdi waxa la helay Naciimo oo dhimatay Allah u naxariisto oo midi ayaa dhowr jeer lagu dhuftay gabadhan Soomaaliyeed ee shaqadeeda ka timid oo waliba ahayd gabar hami weyn leh oo nolosha rabtay waxyaabo badan inay ka sameeyso gabadhan waxay ku shaqeynaysay waxay ahayd kaaliye caaw oo waxay rabtay inay noqoto kalkaaliso ayada ahaanteeda waxayna rabtay sidoo kale inay gaaris wadista sidoo kalena hamiye kale ay lahayd in guursato ay rabtay gabadhan Soomaaliyeed waxa leena Allah u naxariisto booliska markuu wuxuu sheegay maalinka bacdi in la helay nin la leeyahay ninkan ayaa lagu tuhmaya ninka marka waxay dhaheen ninkan maskaxda ayaa lagu jira oo sida ognahay cunsurnimada Soomaalida loo geysto qurbaha qaasatan Sweden dhexdeeda Soomaalida ayaa ugu badan dadka la cunsuriyeeyo oo waliba lagu cunsuriyeeyo midabkooda iyo diintooda marka sheekadana waxay noqon doontaa sheeko iska soo dhamaata ninkaasna waxa la dhihi doonaa maskaxda ayaa looga jiray sida ku soo baxday warbixinta ninkii la helay ninkaasna la leeyahay ninkan dhowr jeer ayaa la sheegay oo dhakhtarku uu sheegay in maskaxda looga jiro laakiinse aan la caawin marka ninka geystana waa la helay waxaan rajaynaynaa Naciimo inay hesho xaqii ay lahayd ninkaana xabsi daa'im lagu xukumo maadaama meeshaan uu ka jirin dil marka Ilaahu naxariisto leena gabadha Soomaaliyeed